نبتقليو أو عثمان حسنة. نبتقليو أنا حسين محمد يا إسماعيل حاج عبدي يا أحمد إسماعيل سمطر. balbal waxa uu ahaa ninkii kobciyey ee faafiyey dhaantada iyo ciyaaraha kale ee la midka ah dhaantada ee dalka Soomaalida laga yaqaan muddo imika laga joogo 34 sannadood waana markii ugu horeysay oo hadal waraysiya oo aan ka qabanay balbal uu ka baxo laanta af Soomaaliga ee BBC-da markaas anigoo imika idin bilaabaya hadalkaasi waraysiga ah ee ninkaas la yaab kale ee balbal waxa aan jeclahay in aan akhyaartana dhageysta xusuusiyo in balbal uu heesaha dhaantada ah ee uu qaadi doono oo uu tiriyey muddo imika 34 sannadood laga joogo uu qaarkood ku soo qaadi doono magacyada qabaa'ilka Soomaalida qaarkood isagoo tilmaamaya qaayaha iyo wanaaga ay leedahay haweeney Soomaaliyeed oo balbal mar jeclaatay markaas waxa ay ila noqotay haddii aan magacyadaasi qabaa'ilka ka gooyo heestaasi in ay qiimo beelayso markaas waxay ila ekaatay in aan ku daayo heestaasi magacyadaasi qabaa'ilka mar haddii heestaasi la tiriyey muddo imika haatan 30 sannadood laga joogo waxaanaan markaas balbal weydiiyey goortuu dhaantada bilaabay waxaanu yidhi waxaan bilaabay 44kii markaa waxaan ka bilaabay jigjiga qolada dhaantada ayuun baan iska raacay oo muddo badan baan ayaamaan dhegaystay sida ay u soo go'ay sida xubnaheedu u dhacayaan sidaas ayaa aan ku bilaabay marka sidaad u bilowday sidee bay ahayd ma dad ku qaadayaad maqashay ma dad baa kuu sheegay maxaad qabanaysay markaas cayaaraha kan bariga laga tunto ergaabiyo dhulka ayaan ku ahaa xariif bulbul ku ahaa marka cayaartii baanu cayaaray taayadii waana lagu soo urbi jiray lagu soo urbi jiray habeenun baanu ka cayaaray jikiyadaasoo markaasaa loo iman waayo agtayada dhaanta lagu tunto dadkii oo dhan dhaantadu u jabay markaasaa wixii horaad barato dhan waxa maaha alla ilaahay tan waa inaad barataa halkaasaan ka bilaabay oo bartay marka intaadan dhaantada bilaabin ciyaarahaad ku qaadi jirtay baad ciyaari jirtay maxay ahaayeen batar hollebe annahaybsan jilib rag ciyaarahaasay ahaayeen marka batarkii wax ma ka xusuusan tahay simaan wax xusuusnay waxaan ka xusuusnahay 3 waa dhalaasha dhaameelka ciideed iyo dhiimow sacaan dhalin iyo ninka dhabeel u dheelmaday 3 waa gudaysaa geesi geeli lala tegay garmadooda ficil galay aarku waa gudayaan 3 waa gurguurtaan cadarkii cidgeedii iyo colku waa gurguurtaan 3 waa madowdahay nin magaalo lagu dhacay nin magaalo guursaday iyo meydku waa madowdi saasaa loogu heesay ma xusuusan tahay dhaantadii kuugu horeysay ee aad ku qaado amba aad ku dhaantaysay markii ugu horeeyay wuxuu ahaa tan iyo jibjigiyo jimiyo baajifaar jawaabtaadi baan u jeel qabayo naaji dheer nin maro jilcaanahay yaanu adigoo jiidin kama joogi kare sidee jiifku kugu soo dhacay markaasaa markii ugu horreeyey marka maynan baad u tirinaysay inan baan u tirinay marka inantii ma maqashay arrintaa way maqashay waxay tidhi jawaabtaadi baan jisoo maarayo helelehin balow wiyaalaahdo waar ma jiifo waajibaysnahay markaasay igu jawaabtay marka balbal xaggee baad ku dhalatay adigu nawaaxiga erigaabo wareeg meesha la yaabo waxaan maqlay maraad erigaabo joogtay oo aad dhaantadaas ku qaaday dadka reer erigaabo 2 meelood ayay u qaybsameen meel ku raacday iyo meel muxuu ahaay ku diiday bal looga waran qisadaas waa la soo masaafuriyay markii burco iyo hargeysa iyo meel banaaga badan lagu furay dhaantadii ayaa la soo masaafuriyay erigaabo la keenay erigaabo ay iska yiraahdeen casarka hoyo warween ma iyo magaalada waa magaalada ku dhashay hal ay daay may baalay dadkana ka saaraysa alaabihii marka hees baa ka tiriyay eelkan waan ku dhasho maxay kale sida ceeriga habka yeelahay colkaygii ciidankii maahayo caweyskay seexinayaan ee sida ceeriga habka yeelahay
عكو عيل كدقح دوري عرفكي قلافودي عربتان للوني جريو فراش لقبي قدبيو هذا الغولي المرصدي الله عين بعين ما يوي سدار عرقو بغيره تامر كان مغادي لبا وكاشبتay oo laba safnaan u raacay safnaa wixii ninka laga joojiya safkeygii baa ku yeeshay halkaasa layga qaaday oo la yiri xareynina xurweeye meesha doono wuxuu doonaha ka tiriyo ninkiina ka soo baxsanaya qabsanaaga asho macaad yeeshay dee baan joogayo jooy kari maaye waxaan ku noqday burco layga soo masaafuriyey marka burco markaan soo galay waxaan idhi ninkii wax dhaqdaa u dheelmaanaye wax dhaqdaa u dheelmaanaye duuxaanay afartooda dhaadheer iyo dhuloy dhalintii daboolaydiyo senga dhumuuqdu weynaatiyo maan dhimanine dhul baan jiray baalbaaldinay bay yidhaahdeen oo dhulkii ka tag bay yidhaahdeeney sidii dheelnuus ma soo dhaacay markaa waan isu sheegay magaaladii marka codkaagaa fiican iyo midhahaas la yaab kale ee jacaylka ahaa ee dhaansada ahaa aad baad uga faa'iidaysatay dumar badan baa kugu raacay dhibaatooyin badanna waa kaa raaceen bal hadda arrintaa nooga waran waxa weeye markii aan soo galay magaalooyinka ee naagaha badan lagu furay waxa dhacday dhalinyarada dareewal karaani booy kow wixii dukaanlaha suuqa jooga iyo carruurta iyo naagihii bay raacay tagiga adag idigama adka markaa wixii odayaal ahaa unbaa ninka ka naga khaarijiyo naga kaxayay lahaa mar baa lay nin kale hadloo doono bal ninkan baaciya markaa waan hordhigtay waxaa heesoo dhammaa baan hordhigtay lagiyo boqol ninoo walaalaahiyo lagiyo boqol kaloo walaalaahiyo nimaan lubigiisu ficinayo nilaahi ninkii wax ku odhan ninaad islugoyso mooyaane midkee laabadaah oo wanaag badanay lamaalaha awraad rarato jarxada lagu laalo laameeyo dameeraha kooda layliya minaad islugoyso mooyaane midkee laabada wanaag badanay ninkii baana hays magaala bartiyo ninkii bogacaanaheed dhamay nin bawsaday heesta beerguba iyo bawaagta ninkii ku daabaqay minaad isbambaanin mooyaane midkee laabada wanaag badanay bilaadka intaan ku noolahay qofkii balwaqaada wow been intaan bilsinkii bayaad ku qoraan baalbaal ku saxeexay beerguba tan iyo barma daartaha oo taybaanahay taasaa markaasi oo ku horjoogtay nin walba hordhigtay maadaanta la yaab leh marka wax kuu soo baxaa la waayay yaa soo baxaya baalbaal markii hargeysa lagaa musaafiriyey erigaabo iyo burco iyo dhulkaasaa tagtay markaasaad dhaantada la yidhaaho ana dheer oo la yaab lahayd aada u tirisay gabadhii la oran jiray aamina laakiin bal intaadan dhaantada ii bilaabin ogaantaa imisa dumara ayaa lagu furay ma in yara dhowr iyo 20 waa gelayaan haddaanay kaba badnayn aana dheertanna markaan galay nin unbaa intuu hinaasay iska taajiro jannaale lacag le ah ayaa wuxuu maqlay baalbaal baa sekadiina soo maray inan yaroo qurux badanna wuu qabaa waa in lacag le wuxuu ka hinaasay sekada baalbaal baa soo maray marka inantii aqalkii wuxuu kaga xidhay bisha qoful kursi laanjeeru iska hor dhigtay wixii ninkaasu iyo arladaas soo maray waar ninka kanu gurigaaga miyuu yiqiin hargeysa meel kuga jiro meel kuga jirto maysaa ku yiqiin adunbaa isxeeleeyey waa ku sidee marka cadhadii baana fasax sooba qaatay bila iska soo qaatay aqalka miyuu ku toosan hortiisaba ayaa ka cayaaray ana dheer halkaasi ka soo baxay iyadii baan bilaabaya alifkii alkaaftiin iyo alkawnayn iyo ilaaja arbacuunka yaasiinki iyo eelkii qur-aankii
afartiiyo tobankiiyo boqolkii ilaahay baroon aslahay akhrigooda ku geliyey maishanee baay garo asliyayaashaadada ruma haddana eray kaleeba waa beeney taniyo adaliyo albaabka shawiyo irdaha reer ismaraa ka soo roganiyo alaalaha beeralaydane inta absan warligu dego waadeenka ugu nagayaal waslayra geela foofsada arbayowga ciisa ama ubaxa samaroon awal iyo isaaq bariyo ishay gebile yidhaadahane arbayowga ciida jareeraaqda ku dhowdaadniyo arab iyo ayuub siman iyo abaryoonis tamar weyn iyo ardaydil habaar xabuusheey iririyo abgadawiyo idilkii mareexaan khaalid oo amran aan la egayniyo idilkii yaxyood garan iyo idil ooga wiileeyey ugaasyada reer shirshuuraay misaa ubaxa ma jirteen misana asliga dashiishaay misana warsan geriga hoog jira ikhyaarta iyo intaan tiriya aslay amarkoodu taan yahay kuwa amarkoodu taan yahay aslay waa inaad ogaataa ayaamaha qayr kale ay dhaalato inkaar male aaminoo kalay asliyey ubaxooga wiileeyey ma eegine eray kaleetona sidii oryanlaynka gaalada oo tan iyo yurub loo agaasimay oo albaabkaas uweysna loo furay ina reer ugaasa dhasho amar weyn inaan ahadoon naar waxaaga dooni amina naamiyaad arrintaa ogaydeney asiyey ubaxooga wiiley ma egineerey kaleetona albaab daran bay ku oodeen asaageedna waa u dideen naa khiyaartiyo qaadiga orado naa kaco ashtakood allah kule midhaha la yaab kale markii aad u tirisay aamina maxay yeeshay aamina cayaartiiba ka soo qayb gashay odagiina gabad buu dhigtay laanjeer oo u xisay naajidley buu jirtaa waxay ka dhacday xagga dambe ka dhacdo aqalada sii jeeda u dhacday oo gabad bay soo marto cayaartayba ku jirta aamina gurigii ma ku noqotay reerkeedii markay xagee sida noqoto aniga aaminaba xidigaan maray xaggee tagteen dhulka iyagaan xodnay de oo qofkii waxaasoo dhami anigaan arkin oo aqoon lagaga sameeyey maaha aawaday ama aniga aawaday loogu sameeyey ma isguursateen wallaahi adigu naagti nin baan u dhisay waxaan wadaba nin baan u dhisay ninkiina imaka carruur bay u leedahay marka intii ay guursatay wax dhaantaa ma u tiriso ama ceeb markaa wey ninkii odayga ahaa ee gabadha qabay waxdaraad ku dhigtay kaasi waa xaalatay so isagu isuma keenin waxaad dhegaysanayseen qaybtii koowaad ee hadalkii waraysiga ahaa ee aan magaalada muqdisho kula yeeshay ninkaas la yaabka leh ee la yidhaaho baalbaal qaybta labaadna ee waraysigaas waxaad maqli doontaan isniinta dambe maantana halkaas haynoo joogo